assalaamu calaykum. dalka ugu baaxadda weyn guud ahaan caalamka, dal leh quwad caalami ah, dalka weyn isku darka baaxadda laba qaaradood, dal haysta keyd khayraad oo aad u badan, dal xuduud la wadaaga in ka badan 10 dal ay dhex qulqulaan in ka badan 10,000 oo webi. ku soo dhowaada macluumaad ku saabsan dalka Ruushka. ruushku waa dal ka mid ah waddamada dhaca labada qaaradood ama transcontinental country. waxa uu dhacaa bariga Yurub iyo waqooyiga Asia. waa dalka caalamka ugu baaxadda weyn. 8 meelood markii loo qaybiyo guud ahaan dhulka meel ka mid ah waa Ruushka. waxa uu ku fadhiyaa masaafo gaaraysa 17 milyan oo kiiloomitir oo isku wareega. waxa uu xuduud la wadaagaa 14 dal oo dhaca Yurub iyo Asia dhul ahaan. sidoo kale xuduud badeed ayuu la wadaagaa Mareykanka iyo Japan, waana dalka ugu badan ee caalamka wadamo intaas leeg xuduud la wadaaga. Norway oo dhacda cirifka waqooyi ee Yurub iyo waqooyiga Kuuriya oo dhacda cirifka bari ee Asia, inta u dhaxaysa Ruushka ayaa ku fadhiya. tirada dadka ku nool Ruushka waxaa lagu qiyaasaa 146 milyan oo qof. 77% dadkaasi waxay ku nool yihiin qaybta Yurubta ee Ruushka. Moscow waa caasimadda ahna magaalada ugu weyn guud ahaan dalka Ruushka. sidoo kale waa magaalada ugu weyn qaaradda Yurub. Ruushka waa dal hodan ku ah kaymaha, webiyada, harooyinka caalamka ugu waaweyn. in ka badan 100,000 oo webi ayaa mara guud ahaan Ruushka. webiga Volga ayaa ah kan ugu caansan, waana webiga ugu dheer guud ahaan qaaradda Yurub. sidoo kale in ka badan 2 milyan oo harooyin ayuu Ruushka leeyahay. harada Baykal oo ah harada caalamka ugu gunta dheer, lehna biyaha nadiifka ee caalamka ahna tan ugu da'da weyn ee caalamka ayaa ka mid ah harooyinka Ruushka. waa dal leh khayraad aad u badan oo ay saliidu ka mid tahay. waa dalka ugu badan ee caalamka soo saara shidaalka, waana dalka haysta keedka gaaska ee caalamka ugu badan. sidoo kale waa dalka 8aad ee haysta keedka shidaal ee ugu ballaaran caalamka. waa dal shidaalka uu soo saaro ay aad ugu tiirsan yihiin waddamada Yurub. Ruushka ka hor sannadii 1993 waxa uu ka mid ahaa ama uu hormuud u ahaa dalweynihii Suufiyeedka ama midowgii Suufiyeedka. dal xilliga ahaa awood ka muuqatay dunida, dal guul weyn ka gaaray dagaalkii labaad ee dunida, dal awooddiisu ay ku baahday caalamka, tartan adagna kula jiray Mareykanka xilligaas. Suufiyeedku waxa ay gaareen horumar tiknoolajiyadii ugu sarreysay. waxyaabaha ay ku guulaysteen waxaa ka mid ah inay noqdeen dalkii ugu horreeyay ee dayax-gacmeed sameeya hawadana u dira. waxa uu ahaa midowgii Suufiyeed dalkii ugu horreeyay ee aadame hawada sare u dira. Suufiyeedku waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee dayax dultaga taariikhda. kahor intaysan burburin Suufiyeedku waxay ahaayeen xilliga dalka labaad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan. sidoo kale waxay ahaayeen dal haystay ciidamada ugu ballaaran ee dunida ee heegan ku jiray. waxa uu ahaa sidoo kale dal haystay hubka ugu badan uguna halista badan ee aadkana wax u gumaada. sannadii 1991 oo ku beegan xilligii dowladdaasi aadku weyneed ay burburtay, waxaa ka samaysmay burburkeedii oo maanta jira 12 dal oo uu Ruushka ka mid yahay. muddo badan ayuu Ruushka la dhibaataysanaa inuu awooddiisa dib u soo ceshto. maanta Ruushka nidaam ahaan waa dal federaal ah, awoodda iyo maamulka ay hoos tagaan madaxweynaha dalka. Vladimir Putin ayaa ah xaakimka xukuma maanta dalka Ruushka, waana shakhsiga soo celiyey awooddii Ruushka ku lahaa dunida. sidoo kalena Ruushka ka dhigay dal hodan ah dhaqaale ahaan, waana shakhsi muddo badan soo ahaa kan ugu saameynta iyo awoodda badan caalamka. maanta Ruushka waa dalka 11aad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan. marka la eego 20 sano ka hor booskii uu joogay waxa ay muujinaysaa Ruushka horumarka uu gaaray intii ku hoos jiray maamulka Putin. sidoo kale waa dal aqoonta iyo waxbarashada aad ugu horumarsan. waa dal leh dalxiisayaal badan oo aad u soo booqda. dakhli sannadeedka soo gala qofka Ruushka sanadkii waa $29,000. Ruushka maanta waa dal saameyntiisa dhaqaale iyo siyaasadeed ee caalamka ka muuqato. waa dal ka mid ah dowladaha ku hubaysan hubka caalamka ugu halista badan ee nukliyeerka, waana dalka haysta madaxyada ugu badan ee caalamka. Ruushka awooddiisu waa awood dunida ka dhex muuqata, go'aamisana jihada siyaasadeed ee caalamka u socdo maanta marka laga yimaado Mareykanka. waa dal ka mid ah 5 dal ee awoodda diidmada qayaxan ama veto power ee qaramada midoobe, kana mid ah golaha ammaanka.